بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي ودكتور مقتل وحنا دكتور كلافا اسبitaal مدينة marka waxa jiro kiiskan oo kale kiisaska oo HIV-ga way soo badanayaan maalmahan rulka oo HIV-ga bukaanada jabo orthopediga arbayna ka hadlo soo bukaankan wuxuu ahaa bukaan xabad ku soo dhacday kadibna oona ogeyn inuu cudurka qabo kadib waxa dhacday isbitaal qaar oo tagay bukaanka marka maadaama cudurkaas dadka qaar stigma ee tahay oo isbitaalada qaar isleeyin hadii la cala bukaankaas isbitaalka lagu qalo oo isbitaalka saameynayo dhanka maadaama social media oo hadda dhibaato badan wadan ku hayo marka waxa jira isbitaalada qaar way ka leexdaan soo marka bukaanka markuu noo yimid muddo 3 bari kadib asagoona la dhayin oona hol loo qaban baacidiis marba isbitaal tagiis alxamdulillah aniga noo yimaadeen markay isbitaalka yimaadeen anaga waa soo dhaweynay maamulka fadhiistay waxaana sanaq maadaama qalabka isbitaalku aad u badan yahay qayb kamid ah ugu talgalnay bukaanada sidaas oo kale ah marka sida caadiga ognahay managementiga oo fractureska oo dadka qaba HIV-ga xoogaa challenges oo leeyahay xiriir ka dhaxeeya jiro cudurka HIV-ga iyo difaaca jirka qofka hadii difaaca jirka qofka aad u liito oo cudurkana oo hore u qabay oo daawo u isticmaalin wuxuu saameyn ku yeelanayaa lafti marka caadiyan HIV infection wuxuu saameyn ku yeeshaa metabolismka oo lafta istaadiye laga sameeyaa jirto marka qalin lagu sameeyo qofka caadiga ah iyo qofka cudurka qabo wax difference isoo jirin xagga marka laga hadla infectionka iyo lafta inay bogsooto marka kiiskeen waa bukaanku wuxuu labaati bukaanka 25 jiro aha markuu noo yimaanay isbitaalka sidoo noo sheegay cudurka meesha ka qaaday waxay dadka qaar waxa jiro maadaama hadda wadanku aad u soo badan dhalinyarada isticmaala IV drugska xagu ka soo qaaday soo asaga oo noo sheegay markii ugu dambeysay kadib markaan baarnay waxaan sameynay 2 test aan marsiinay labadiina positive noqday markuu noo yimaana vital signs-kiisa vital signs-ku oo normal ah marka laga reebo temperature-kiisa oo kacsanaa marka image marka fiiriso bukaanku wuxuu ka jabnaa distal femur fracture oo ahaa marka was open oo ahaa isla markii waxaan u sameynay saaladan geynay good debridement oo sameynay good debridement oo sameynay waxaan ku dhaqnay up to 9 liter maadaama bukaanka open oo yahay haddana cudurka oo qabo infection oo nugul yahay marka ugu yaraan 9 liter ah like woundiga ma weyneyn ilaa 4 cm ah ma weyneyn marka waxaan sameynay marka bike slab iyo qalajiya hore ugu bilawnay daawadiina muusan qaadinay markuu noo imaanay isla markaas daawada u dalabnay isla maalintaas daawada oo ku bilawnay oo HIV-ga marka 10 bari kadib relook debridement oo sameynay 2 maalin kadib oo ku celinay waa dhaynay marka oo arag nadiif inuu yahay bukaanku waa u talnay 10 days later waxa uu sameynay internal fixation discussion kan muxuu yahay marka bukaanka oo qaba HIV-ga wuxuu la mid yahay bukaanada kale oo aan HIV-ga aan qabin marka la fiiriyo qalinka kadib waxaan aragnay inuu san imaan infection laftina healing oo oblum callus marka fiiriso South Africa laga sameeyay study laga sameeyay waxa lagu ogaaday inuu equal effective oo yahay qofka HIV qaba iyo qofka aan HIV qabin xagga riskiga inuu lafta daahdo healingkeeda iyo maxaa la yiraahdaa non unionka anada study lagu sameeyay Pakistan
waxay comparison u samaysay marab waxaa muhiim ah qofka markuu HIV qabo inaa og tahay aa u dirsato CD4ka levelkiisa iyo viral loadka marab way ku xiran tahay outcome-ka marka conclusion-keena muxuu yahay bukaanada qaba HIV-ga waxay ku xiran tahay difaaca jirka heerkiisa iyo daawada inuu early bilaabo marka waxaa loo baahan yahay mar walba assessment in loo sameeyo CD4ka levelkeeda mar walba inaad ku talagasho markuu HIV bukaanku ku yimaado viral loadka iyo CD4 levelka waa inaad og tahay mar walbana muhiim waaye inaad protocolka oo infection controlka inaad marto sidoo kale waa inaad u bilowdaa qofka daawadii oo antiretroviral therapy sidoo kale waxaa muhiim ah inaad multidisciplinary samayso oo la xiriirto dadka ka shaqeeya HIV-ga orthopediga iyo dadka infection disease-ka thank you reference waa kana thank you